shirkan jaraa'id oo aan ku qabanay magaalada Burco waxaan kaga hadlaynaa xaaladda uu dalku marayo marka ugu horeysa hadalkii jananka afka habar oo anaga ku hadlayna horta xaal baan ka bixin arintaas arrin dambi ah ayay haydo beesha habar Yuunis oo irgaa oo madaxweynuhu diray oo madaxweynuhu waliba ma sanadkan xaaji uu diray oo hadalka markuu xaj ka soo noqday nabad baan ku dhameynaya hadalkii nuuxtaani uu ka dhex galay waxa weeyaan arintaas habar wal ahaan horta xaal baan ka bixinayna isagoo nin ciidan ah haddana waxa weeyaan deewaana beel marka waxa weeyaan xagga beelnimada anagu ciidan galmeeyna xagga beelnimada habar Yuunis xaal baan ka siinayna waxaana aanu leenahay beesha habar Yuunis nabadii ay wadeen labada gacmood bay isugu geeyay sidii madaxweynuhu idin diray madaxweynuhu kama hadal arinta sidii madaxweynuhu idin diray hawshii u wada nabadgelyada gacanta ku qabta xijiya madaxweynahana waxaanu leenahay waxa weeyaan mas'uuliyad baa ku saaran oo qaranka waad u dhaaratay marka xigta arintan caare marka laga hadlayo ballan baad ka gashay marka xajka qabanaysay marka ka soo noqotayba halkan ay ka murkucatay uu jananku ka hadlay waxaad ahayd inaad ka jawaabto intaan hadaladan fara badan la'aanay meediya soo gelin imikana waxa weeyaan waxaan ku leenahay mudan madaxweyne arintaas sidii aad u waday u wad hawshaas sidii aad ku ballan qaaday u dhamee dedeji waxa weeyaan hadalka janankana sida anagu haddaanu beel ahaan baanu imika kaga bixin adiguna madaxweyne ahaan tii dawladnimo ku taala haddii aad xilka ka qaadayso iyo haddii aad digniin siinayso haddaba boljees ka bixinaysaba waxa weeyaan hadalku uu fara badnaa hadal baa inaga socday dhinaca Puntland hadalka inaga socday iyo hambaliyada nuux lagu soo wadana nuux waxaan leeyahay waxa weeyaan ka jawaab arintaas oo apologize hadalkaagina ka bixi madaxweynaha waxaan leeyahay dal iyo dad baa ina dhaafay jananku sidii arinta uu ka dhawaajiyay uu yiri waan ku faraxsanahay Puntland ay soo hambaliyeynayso dawlad ahaan kaga jawaab arinta oo milgaha ay leedahay kamara haddii aad taa ka mari weydaan waxa weeyaan madaxweyne waliba adigu halkii ugu sareeyay baa taho dalka waad u dhaarato waxay noqonaysaa high treason ayay noqonaysaa haddii aad ku eegato dal iyo dadka wareegay waan ku faraxsanahay qarankan xuduudihiisa aad ku dhaaratay halka waxaanu leenahay waajibkaaga gudo madaxweyne hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa Ibrahim Degaweyne gobolka Togdheer wuu yimi beelaha gobolka wuu la shiray arinta uu kala shiray waxay ahayd nabadgelyada ceelaf weyn wax kale oo jiray ma jirin waxaan maqlayaa wasiiro ayaa arintii Degaweyne la muxuu Degaweyne ka waday Burco Ibrahim Degaweyne wuxuu ka waday nabad ceelaf weyn in reer Togdheer ay u guntadaan iyagoo isku duubanaan qolo kala lahayn bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi iyagoo dhan oo reer Burco reer Togdheer ah inay talo isku geeyaan oo ay u gurmadaan dhiig ka daadanaya ceelaf weyn oo waajibaadkooda gutaan reer Burcona arintaa way ka qaateen abaabulkeedii waa socdaa waa u diyaar garoobaynaa reer Burco waxaan leeyahay inagoo isku mid ah aynu u gurmano dhiigga walaaladeen ee ka daadanaya ceelaf weyn inagoo Togdheer oo aan qolo kala lahayn baynu ku gurman insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygii Somaliland maanta nin kasta oo wax garad ama aqoon-yahan ama siyaasiyi arinta nabadgelyada ceelaf weyn ha ka tamariyo dawladana waxa aanu leenahay dadkaaga midee gobolka Togdheer oo jiraad ku qabanay annaga iyo siyaasi Saleebaan horta awal bari haan baan maanta ku hadlay afkan ku hadlay waa awal bari waliba waa gudidii hore awal baraan ku hadlay maanta xusbinimada halkan baan yara dhiganaya shaarka xusbiga waxaan leeyahay nuuxtaani nin wala tulkii oo meeyr qabay horta xaal baan ka bixin gaar ahaan beesha garxajisii sulaadiinta halka ku maqleedii guurtidoodii iyo gudida guud ee garxajisii gaar ahaanba waxaanu ka siinaa xaal ilmada reer xaal ka qaatan fidmada ilaahay baan nacay fidmo ku ciidankaas fidmada ayaan wala qaad Soomaaliland waxa lagu joogay samirka garxajis in badan baa waa naga majursanay waa naga talaab qadansan beelaha ay kale samirkiina lagu joogay ilmada reer saw samirkiisa safraan leh waqti yaan samirkooda ka dhamaan Soomaaliland maalintii la sanamayn la maanta samirkiina lagu joogay hadii samirkooda ka dhamaadana ilmada reer Soomaaliland jirmayse wax kasto naga ka yimaado naga dulqaataan leh
in adeerkay muusana maanta anoo afkii reerkaya ku hadlay guddidii hore awal bari ma hii tan iminka tii hore aan ahay waxaan leeyahay ilma adeeryaal in adeero walba rabar yoris annaga qabanayna ama garxaj annaga qabanayna haddaan maxamed ciise nahay bal adiga yaa ku qabanaya sacad iyo ciise toon labada midna ku qaban maaye bal cid ku qabanaysa ilma adeeryaal loo soo sheeg baan leeyahay muuse bal cid loo tagay malaa maxamed kaayna maqli weyday malaa waa sulaadiinta dee buur madow iyo xaggaas bal sheeg cid ku qabanaysan leeyahay muuse ilma adeeryaal maanta Soomaaliland dagaal uma baahno barwaaqay ku jirtaa iyagana samarkiina ilaaliyo aanu wada ilaashanaan leeyahay caarana waxaan leeyahay in adeer waad uga lexjalo badantay rag badane lexjalada ku eekow markii hore baad Puntland ku diiday calanka Soomaaliya aad ku diiday ee Soomaalilandnimada lexjalada hayso waxay baan leeyahay dalka iyo dadkana inaga leen aan dhowrno waxaynu u soo marrayna ilma adeeryaal waa garanayna nin baasaboor sita maanta yeynaan dhageysan nin baasaboor sita wasiiro bariis ka dhoofaya yeynaan dhageysanay Soomaaliland baasaboor ma lihin inagu tan baynu u dhalanay oo ku dhalo ilma adeeryaal wada ilaashanaan leeyahay iyaga nabadgelyadana hal ilaaliyo leeyahay wasiiradii alanka hadlayay la sheegay anigu ma aragay ilahayna guuriye Ibrahim Xibra ka qabanayaan iyo John Fayden war nabadgelyo u yimaadeen iyagu burcadi deerku kale dhex yaalana way soo fureen magaaladana way nabadgelyo ka shaqeeyeen intii horena way u soo halgameen imka nabadgelyo halgamayaan waxaan leeyahay namada hadal haye bajaajta ay mar wada yimaadeen Soomaaliland ama gaadhigan dukaanka ee lambarkan tuu taaleeray mar wada yimaadeen yaan haad ku geeraradaydu ku cin daa nabadgelyo darro ka shaqeeysan war shacabka bal anaga qabanayne bal dawladda ayaa qabanay dawlad gar daran ayaa qabanaya